xabadooda ayuu celin karaa gaariga bulletproofka ka waran adigoo meel colaada jooga kana baqayo qolyo aad ishaysaan gaarina wata haddii aadan ka baqayn in xabadi kuu soo gasho gaariga soo xasilooni iyo kalsooni dheeriya ma ahan gaariga ay qaataan naftoodana ku aaminaan dadka madaxda ah kuwa ganacsatada sare ah iyo kuwa dhaqaalaha culus haysta ee sidooda muhiimka isugu arka waa gaariga ku magac dheer bulletproofka sidee buu u shaqeeyaa waase maxay shayga uu ka samaysan yahay ee adayga balada ah leh ee xabadda aan naqaan awoodeeda iyo orodkeeda celinaya ugu horeyn baabuurta markii la soo iibsanayo ma ahan kuwa xabad celin kara shirkadaha baabuurta iibiya ma ahan kuwa ku shaqo leh bulletproofka ama xabad celinta waxaase jira shirkado kale oo sidan ka dhiga baabuurta taasna waxaa keenaya shaqada oo ah mid aad u adag mana ahan baabuur khaas ah baabuur walba waa laga dhigi karaa xabad celiye laakiin maadaama ay aad u culus tahay shayga xabadda celinaya waxaa muhiim ah inuu gaarigu yahay mid u dulqaadan kara qaadina karana culayska haddii kale jardiimada yaryar ayaa qabsanaya sida ku dhacday baabuurkan uu saarnaa Barack Obama walow uu ahaa gaari xoog badan misna waa ay ku dhacday goortii aad damacdid inaad gaarigaaga ka soo dhigtid bulletproof adigoo macmiil heer sare gaaray ah tusaale ahaan waxaad gaarigaaga geynaysaa mid ka mid ah shirkadaha shaqadan qabta kadib markii lagu ammaanay aadna maqashay inay in badan ku badbaadeen macaamiishoodii hore kadib markii loo dhigay shirqoollo lagu dili rabay gaarigaaga waa la furfuri doonaa oo isaga dhanba waa la dhili doonaa waxaana laga bixin doonaa kuraasta roogaga iyo dahaarka daaqadaha oo dhan kadibna waxaa lagu dhejinayaa berihii iyo muraayadihii xabadda celinayay min daaqado salka hoose iyo saqafka sare ee gaariga shaygan xabadda celinaya waxa uu ka samaysan yahay alaabo la isku geegeeyay waxaana ka mid ah polycarbonate ballistic ball fiberglass iyo kevlar iyo kuwa kale oo badan alaabtan oo isugu jirta kuwa aysan xabaddu sidooda u karin iyo kuwa lagu xoojiyay ayaa la isugu daraa in lagu dahaaro baabuurta alaabtan waa kuwa intooda badan ka samaysan ashyaa blastiga laakiin cufkooda ama densitigooda aad u sarreeyo waxaa xusid mudan in farsamada ka dambaysa in xabaddu dhaafi weydo muraayadda aysan ahayn keliya adaygeeda laakiin sababta aysan la dhaafayn waa in muraayadda xabadda ay ka nuugayso enerjiga ama tamarta ay wax ku daloolinayso isla marka ay ku dhacdana muraayadduna xabaddii noqonayso dhagax lasoo tuuray oo kale marka waxaa jira dhowr leefal ama heer oo uu difaacu gaarsiisan yahay kaasoo kasii qaalisan hadba midka ka difaac yar tusaale difaaca koobaad waxa uu ka jaban yahay difaaca leefalka afraad ama saddexaad heerka difaacuna wuxuu ku xiran yahay inta muraayadood ee laysku dhinac qabtay ama laysku lamaaniyey oo haddii laba muraayadood keliya laysku lamaaniyey waxaa ka difaac badan marka laysku lamaaniyo 3 muraayadood laakiin nasiib wanaag baabuurta lagu qalabeeyey difaaca heerka koobaad waxay awood u leeyihiin inay kaa celiyaan rasaasta biskooladaha 9mm-ka iyo sidoo kale qoryaha yaryar waxayna awood u leeyihiin inay celiyaan ilaa 3 jeer oo lagu dhuftay hal bar ku tasho haddii uu toogtuhu yahay shishihan oo uu mar afraad isla bartii ku dhufto inay kuu soo geli doonto xabadda ugu dambayn si shirkaddu u qabato shaqo xabad celina ama bulletproofina waxay u baahan tahay laysansi xoog badan iyo tijaabo waqti dheer ah oo ku mahadsan tahay daawashadaada fadlan haddii aad muuqaalka heshay like